gudoomiye ku-xigeenka gudida Kaambeynka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer way weheliyaan xubno ka tirsan gudidaasi ayaa ka furay xaafadda Qunyardega ee magaalada Burco saddex xafiis oo ay ku talagaleen bulshada ku dhaqan xaafadaasi mas'uuliyiinta gacanta ku haysta xafiisadani ayaa ka mahadnaqay xafiisadani looga furay xaafadani waxayna sheegeen in iyagu sabaabuleen isla markaana ay taageero la barbar taagan yihiin xisbiga muxaafidka ay kulmiye anaga xisbiga taageeray gudidayada iyo maalkayaga iyo muruqayaga anaga la garab taagan codkeegana waan la garab taaganahay aad iyo aad gudidana soo ajibtay oo noo timi xildhibaanada leh naway maadsan yihiin boqolkiiba boqol gudoomiyihii gurigan baan ahay annagana xaafadda Qunyardega annaga sida iyada isu abaabulnay markii aan aragnay in xisbigii munaasibka ku yahay ayaanu annagu kulmiye annaka dooranay dadkuna kulmiyu wada doonaya u wada heelan yahay xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto kulmiye ha guulaysto waxaanu taageersanay anagu muusabix maalkeena lagu codeynaa nafteena nuurida Soomaa Muuse baan ku mahadnaqaynaa dadkii reer Qunyardega ee gurigaaga simay ee halkan ugu diyaargaroobay in xisbiga kulmiye ugu halgantaan gudoomiye ku-xigeenka gudida Kaambeynka xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Mustafa Xudun iyo xildhibaan Maarig Bidhi oo la hadlay dadka ku dhaqan xaafadaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxa leedihiin guriyaha kale baa la mid guriyaha kale baa leedihiin in aad iyo aad wax laga rabo leedika rabo maalintii soo bax ina wada muujisaan oo ay soo baxdaan oo wixii u baahan gaadidana ana weydiisaan maanta waxaanu ka furaynaa xafiis ay reer Qunyardega iyagu samaysteen oo weyn oo dadkiisa iyo shacbigiisaba wata iyaguna ay gacantooda ku samaysteen wax qarash aan lagu bixin oo si mutadawacnimo ay u furteen ayaynu maanta xadhiga ka jaraynaa hadii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad ugu mahadsantihiin xaafadda iyo hareeraheeduna wataan ku soo koray Burco inta shacabka iyo Qunyardega imika u bixiseen waa ilaaladii waxa ilaalada la oran jiray weeye inta ay u dhaxaysan ku soo koray waan mahadsan Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.